masaajidka oo aniga imaam aan ka ahay wuxuu ku yaalaa Niagara Falls wuxuu ku yaalaa townka ama wastul balad meeshuu ku yaalaa markas waxa isoo mara Soomaalida Columbus Ohio iyo inta oo New York markas Soomaalida waxa way xuduudan jooga aniga xuduudda Canada iyo Mareykanka masaajidkayga wuxuu u jiraa Mareykanka 25 kiilo 25 daqiiqo u jira marka masaajidka markasta waxa waa masaajid dalxiis dadka dalxiiska u badan maalin kasta oo salaada oo khaasatan salaadaha duhurka iyo casarka iyo markas waa arka Soomaali ama Mareykanka ka imaad ama Soomaali oo dalxiis meesha ugu tagtay marka masaajidkana waxa waa Masjid Aisha wuxuu ku yaalaa Niagara Falls waa markas ay soo booqdaan Soomaalida maalin kasta waa arka maadaama xuduud aniga aan joogo marka Soomaalida insha Allah kulay waxaan leeyahay ku soo dhawaada insha Allah Niagara Falls waayo Soomaali meel kasta way joogaan meel kasta ayaga imaamka ah waxa aan ku fiicanahay waxa waaye meel kasta anaga imaamka ah su'aal wax yaran kugu daraay hadda kor anaga jaamacatul azhar aan dhiganayno Sheekh al-Azhar rahimahullah Muhammad Sayyid Tantawi ayaa waxa laga codsaday Soomaali hadii la keeno Masar ama Azhar la keeno way safraan Allah maadaama ay safraan min xadha laga joojiyo la soo gudbi Sheekh al-Azhar wuxuu yiri hadii wax barashadii ay ka tagaan imaamay waxay ka noqonayaan wuri Europa iyo America ahlu Quraan way Soomaalida hal daayo wuri marka Soomaalida ahlu Quraan way waad aragteen oo ka imaaday wadanka Mareykanka wuxuu yiri inta oo soo socday ajnabi ahaa wuxuu yiri tuuro kasta markaan soo maray ilaa aan ka soo galay Niagara Falls masaajidkaas waxa joogo nin Soomaali imaamka ah wuri marka ina ahlu Quraan ahayn adduunka dhan waa la ogyahay marka caruurta meeshan joogto iyo qurbaha Quraanka lagu dadaalo Ilaahi subhanahu wa ta'ala Quraan xadiiskiisa wuxuu ku leeyahay nabigeena khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu intaas ayaan ku soo gabagabeynaya ustaad Muxudiin adina waa mahadsantahay